fanka igude anigo wiilka ku soo shaac baxay TikTok misana heesta soo saaray dhawaan ee shacbiyada ku yeeshay magaca Socdaal fannooley ayaa karbaashay YouTuber-ka Shiine Culay lana jirsaday King CK heestiisa karbaashka iyo sababta arinkan ka dambaysa ayaan idin la wadaagi doonaa daawadayaal mise maxaa ka jira wararka sheegaya in erayada iyo laxanka uu leeyahay heestan King CK oo ah YouTuber aad wada taqaanaan isla mar ahaantaana kamid ah YouTuberada Soomaaliyeed kuwada ugu caansan muuqaalkeenan ayaan daawadayaal idin kula wadaagi doonaa aan u guda galin daawadayaal muuqaalka like saara oo subscribe gareeya channelkeena Duceysana Media kuna mahadsanidin daawadayaal kulanti haboon daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub oo aan kaga hadli doono fanaanka muddooyinkan dambe la celin la yahay ee Socdaal fannooley isla mar ahaantaana soo qaaday hees inaba aan caadi ahayn heesta uu ku karbaashayo YouTuber-ka weyn ee lagu magacaabo Shiine Culay musharaxii Shiine Culay waxaana sidoo kale uu sheegay in uu la jirsaday King CK ila daawo muuqaalka daawade baalku waa shito cali waxa tahay caruur waxaad ka liidataa nyaanyuur yaa TikTok kulligood waxay ku dheen yur igude fanka igude anigo baahiye igude wir iga celisho baa ku dhashay igude fanka igude anigo baahiye igude wir iga celisho baa ku dhashay war yahay Shiine taaj balaweye ina ka keen abad yubaad ku wareerto ana dalkaygo yabaan ku qanacsan hoog wadaabitaan war yahay Shiine taaj kaleecsiikay adaas raftaad rabto fanaxley maaha kibireesho waa qurxley ani kama siyaabooyin kala duwan ayay bulshada Soomaaliyeed uga falceliyeen social media heestan waxaana ku qoran inuu qoray heestan erayada iyo laxanka intuba King CK walow King CK oo comment ka soo bixiyay heesta uu beeniyay wararka sheegaya in heesta isagu uu qoray kuma sanid daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada